maalmihii lasoo dhaafay waxaa aad u soo badanayay wadamada joojinaya mucaawanooyinka ay bixin jireen. Wasaaraha waddankan Ingiriiska ayaa maanta ku dhawaaqay inay yareeyeen ama gebi ahaan ay joojin doonaan wixii loo yaqaanay UK aid ama dowladdan Ingiriiska lacagihii ay siin jirtay dunida saddexaad. waxaa jira mashaariic ay dowladda Ingiriiska bixin jirtay, mashaariic fara badan oo ay ka caawin jirtay dowladaha sida Soomaaliya ama Afrikaanka ama Asiaanka. arrintaa waxay sheegeen hadda in la joojin doono oo mashaariicda qaar ay hubaan inay muhiim tahay, kuwaas ay caawin doonaan. mashaariicda inta ugu badan ay ku saabsaneed dhaqanka, isdhexgalka, xorriyadda dumarka iyo waxyaabo fara badan oo ay dhaqaalo fara badan ku bixi jireen way joojiyeen. waxay sheegeen lacagahaas inay u isticmaali doonaan dhinaca ciidamada. oo arrintan Ukraine waxay keentay in Faransiiska uu budget weyn u jaro ciidamada. Ingiriiska hadda ay sheegeen budgetkii oversea ama dibadda loo diri jiray mucaawanooyinka in la joojin doono oo dhinaca defensiga ama wasaaradda gaashaandhigga lagu maalgelin doono. waxay dhisan doonaan ciidan, way isqalabeyn doonaan. arrintaana waxaa aabba ka ah Donald Trump markuu Yurub ku handaday inuu ciidankiisa ka qaadanayo, inuu difaacaynin, heshiisyo uu la galayo Ruushka. arrintaa waxay keentay inay wake up call ama Yurub inay hadda hurdo ka kacdo ay siyaariso. dowladaha sida Soomaaliya dowladdeena waxaa la rabaa inay ka tashato mucaawanadan iyo waxaan oo sidii dowladdii xilliga kacaanka iskoolada lagu dhiso iskaa wax u qabso, waddooyinka iskaa wax u qabso, shacabka la adeegsado. fiiri magaalooyinka ama tuulooyinka yaryar Soomaaliya, dowladda hadday ku deeqdo wax yar iyagaa dhisan karo iskooladooda, macallimiinta iyagaa mushaaradooda siin karo. waxay u baahan yihiin abaabul. haddii la abaabulo, dowladda waxay samayn kartaa tuulo walba Soomaaliya in iskool MCH laga dhiso, meel yaro ciyaalka marka intay iskool gaarin lagu hayo. waxaa laga yaabaa dowladda hadday ka bixiso shamiindada iyo shaqaalaha dhisaya in dadkaas ay rangaraysan doonaan ama iyaga ay mas-uul ka noqon doonaan, ay wadi doonaan.